بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد barnaamijka iyo dadka soo qaban qaabay waa u mahadcelinayaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala xaqa iyo khayrka inuuna waafajiyo nagu sugo qur-aanku meeshii la qaadaba muhiimaddeeday leedahay waa aayado kooban oo aadamaha qurun badan inay hagaan oo ay hanuuniyaan xaaladaha kala duwan loogu talagalay dhowr munaasabadood oo xiriira markaan eego waxaan is iri ama aayadtii fii suurati zumar ahayd aada la wadaagtaa qowluhu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica inahu huwa algafuuru araxiim aayadda ilahi subxaana wa tacaala oo aayadda lagu tilmaamay culummada inta badan saxaabo badanna laga wariyey arjaa aayatin fii kitaab illaah aayad kitaabka ilaahay ku soo aroortay aayadda ugu rajagelinta badan weeye qofka raxmadda iyo naxariista ilaahay arrintaasi saxaabo badan baa laga wariyey sida cali bni abi aalib cabdillaahi bni mascuud cabdillaahi bni cumar culimmaduna sidaasay u badan yihiin inay tahay aayadaha qur-aanka kuwo badan baa la sheegaye aayadda qofka ugu rajagelinta badan rajagelinta aayaddu ma aha gaar kuma aha qofka muslimka oo markuu ilahay leey yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadayda naftooda ku xadgudbay xadgudubka waxaa laga hadlayaa qof dembi badan sameeyey dunuub badan galay wax badan ilaahay ka caraysiinaya sameeyey ilaa xadka ugu sarraysa ee kufriga iyo gaalnimo ha noqoto ama wax ka hooseeya ha noqoto aayaddani madiinay ku soo degtay marka nebigu tegay calayhi asalaatu wassalaam cabdillahi bni cabbaas sida uu leeyahay rag gaalo ahaa oo dhiig badanna galay gogol dhaaf iyo zina iyo dembi badanna sameeyey ayaa waxay ku dhaheen nabiga sal ly slam niyow diintan aad sheegaysaay aad bay u qiimo badanta laakiin dembigaan galnay wax yar ma ah wixii aan galnay ee faraha badnaa isaga muxuu noqonayaa aayaddan aad soo degto ku dhiirigelinaysa haddiiba ay toobad keenaan ay rabbi u noqdaan ilaahay dunuubta dhaafisteeda waxba kuma aha markaasay soo degtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoomadaydii naftooda ku xadgudbay ee dembiga badan iyo khaladka badan galayo laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilaahay haba ka quusanina maxaa sababa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dunuubta dhammaan wuu dhaafa inahu algafuuru raxiim ilaahay ku dembi dhaaf badan naxariisna badan wey dembigu waa lagu dhaafayaa in sidii loo dhaafi lahaa aada samaysa unbuu u baahan yahay waxaa kaloo sugan in rag saxaabada ka mid ah maka inay ka hijroodaan ay ku heshiiyeen laakiin way dhuumanayeene meel bay ku ballameen waxayna isku ogaayeen ninkii xilligaa la waayay ha laga socdo waxbaa qabsaday inta kale ayaan la gaadhin nin ka midaa la qabtay reerahoodii ogaadeen oo la xayiray markii la waayana waa laga tegey kadibna si loo waday buu gaalnimadiisi isaga noqday hase ahaatee xanuun way ku haysay qalbigiisa ah aayaddan markay soo degtay baa loo soo qoray saxaabadii qayb ka mid oo madiine joogtay way u soo qoreen way u soo direen markuu arkay wuxuu leeyahay waxaan garowsaday in ani layla hadlayo kadib buu soo dhuuntay dibna islaamka ugu soo noqdo waxaan gartay bui aayaddan farriin inay tahay wixii khalad aad samaysay waa la cafinaya haddiiba gaaladii sidaa loo cafinaya qofkii kelimada tawxiidka islaamnimada haystay waxaa layna leeyahay dembi kastood samaysaan waa la dhaafaya naxariistan waa sacnimadeeda iyo dembi dhaafkan la sheegaya xataa muslimka keliya gaar kuma ah munaasabadda aayaddaas ay ka hadlayso waxaan is leeyahay wakhtigan si gaaray munaasab ugu tahay oo saddex arrimood isu yimaadeen ramadaan oo ah bishii albaabadu furaayeen albaabada khayrkana la furay kuwa jannada la furay kuwa naarta la xiray shayaadiintii
madaxa adkaaya qaybtoodii si dhibka badnaydee dadka dhuminaysayna la xirxiray samadana laga dhawaaqay habeenkii horreysay bishoo la yidhi yaa baaqiya alkhayri aqbil oo yaa baaqiya ashari aqsir ku khayrka doonayo u soo jeedso khayrkii kii dhibka doonaya ka shaqaynayuna gaabso oo dhibka ka joog munaasabadda ramadaan marka waa munaasabad si gaara raxamaadku ay u soo degaan waa munaasabad nabigu uu aamiin u yidhi ducadii jibriil ee ahayd qofkii ramadaan gala oon loo dhaafin ilaahay ha fogeeyo ramadaankii makfirada iyo raxmaddu ayaddu ay ka hadlaysaay mid labaadna waa munaasabad ay leedahay oo zaman ibtilaa baa lagu jira waana zamadkii towbada iyo khushuucda iyo rabbi u noqoshada u baahnaa falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu markay dhibka yimaadeen la imtixaanamay ilaahay u soo laabtaan marna waxaa la yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaasi lidiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun waxay sameeyeen qayb ka mid ah ciqaabkiisii la dhansiinayaa si ay u soo laabtaan oo isu gartaan zaman ibtilaana waa ku jirnaayo mid saddexaadna way leedahay oo zaman macaasidu badantaan ku jirnaa oo dembigaad gashay marar badan aadan ogaanayninba dembi inaad gashay asbaabtiisii baa fududaatay iimaankii baa daciifay wixii xumaha dhiiri gelinayey baa batay saddexda arrimoodba markii la eego in dembigaa badanaan gelayna iyo eedaa badanaan rabbi ka gelayna iyo khilaafkaa badanaan sharciga khilaafayna iyo inaynan ku halmaamin naxariista ilaahay oo dembigu intuu inala weynaado aynan halmaamin naxariista ilaahay oon ogaana inay waasac tahay in allaha yakfiru dunuuba jamiican waxaa la yidhahdaa aayaddan in allaha yakfiru dunuuba jamiican dhammaanteed wuu dhaafaa waa duuduubanta laakiin sida loo dhaafayo meelo badan oo kalea lagu faahfaahiyey hadduu shirki yahay iyo gaalnimo yahay towba iyo tawxiid iyo iimaan baa lagu dhaafaayo in alislaama yahdimu maa kaana qablahu waa wax kaloo ma baahna hadduusan ahayn oo xuquuq bini aadam yahay inaad xuquuqdii guddaa lagu dhaafaayo intaan qiyaamada ka hor nabigu waa kii lahaa dirham iyo dinaar aan la waayin oo acmaal xasanaadun la kala qaadan doono dadkii xuquuqdoodii ka cafay dalbuu celiyey haddii ay dunuub kaloo rabbi laga galay tahayna annadamu tawbatun xadiidka waa kiiha baab baa lagu faahfaahiyey iyo tawbatan nasuuxan iyo kuwa lamidka laakiin halkan si guud baa loogu yeeray dadka oo loogu sheegay ilaahay dunuubta inuu dhaafo dhammaanteed laakiin waa markii mid walba dariiqiisi loo maro waxayna arrintaa tilmaamaysaa inaan u baahan nahay waa laydinka dhaafi baa la yidhi laakiin dariiqii loo soo mari lahaana inaan barannoon aqoonsan waxaan isleeyahay aayaddaas wakhtiga kooban awgiis way mudan tahay tadabbur badan iyo dhuuxitaan iyo dhugasho badan inta loo yeesho in tilmaanta ay bixinaysa lagu dhaqmo saa darteed baa aayadaha ka dambeeya lagu dhiirigeliya dadku inay rabbi u soo laabtaan waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaatiyakum alcadaabu uma laa tunsaruun waattabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yaatiyakum alcadaabu baqdatan wa antum laa tashcuruun sidayn dib hadha uga shallayn jaaniska iyo fursadda ka faa'iidaysta ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa kuwii naxariistiisa waasaca iyo dembi dhaafka waasaca ka faa'iidaysta